maalin wanaagsan. Waxaan rabaa halkan inaan qaybtii kale ee xildhibaan Jeremy Johnson uu uga hadlayay arrimaha gobolka Soomaalida Itoobiya iyo maxkamiyadda Somaliland aan halkan kusoo gudbiyo. Sidaan warbixintayda hore ku sheegay, xildhibaanku waxa uu ka mid yahay laba xildhibaan oo abidkood booqday dhulka Somaliland. Asaga iyo xildhibaan kale baa maxkamiyadda tagay inta ay haysteen sida uu sheegayo. Haddaba waxaan rabaa warbixintiisa inaan si dhammaystiran aan idinku akhriyo shir jaraa'id oo qabanayo Soomaali arag si aad uga fahantaan siday wax u socdeen xilligaas. Xildhibaanku wuxuu leeyahay horta maalinimadu waxa weeye waa 12 duhurnimo 24 bishii July Luulyo 1956. warbixinta hore 5 baa ahayd November. Adu waa 7 bilood kadib 8 bilood. waxa markaa dhacday uu ka soo baxay dood wasiirka arrimaha dibadda uu ka jeedinayay xaaladda Geeska Afrika baarlamaanka. doodaasoo su'aalo badan la isku raftay, wax badan la weydiiyey. wuxuu dhaleecaynayaa wasiirka inta hore oo uu leeyahay wuxuu noqday nin u adeega ra'iisul wasaaraha oo gacan yar ah, wasiir arrimo dibadeed aan matali karinba mogta Soomaali arag. waxa uu imaanayaa nuxurka doodiisa asagoo markuu qabanayo. waxa uu leeyahay asagoo markuu ka hadlayo dadka Soomaalida la yiraahdo waa ilaa xilligii boqorkii la oran jiray Henry Ingiriiska waxay ahaayeen 2,500,000 oo ka yimid gacanka Carabta. kumanaan sano ayay ku soo wareegayeen dhulka iyagoo aan lahayn xuduud rasmi ah. dadka Soomaalidu dhulkan markay yimaadeen way soconayeen, way guurayeen. xuduud celisa oo rasmi ah oo halkaasay ku go'an tahay la yiraahdo ma jirin. haddaba sanadku markuu ahaa 1897 waa markii heshiiskii Berlin annaga iyo Itoobiya waxaan kala saxiixanay heshiiskaasoo ah in dhulka maxkamiyadda Somaliland qayb ka mid oo reserve area uu ku sheegay aan ku wareejino Itoobiya. sababta aan sida u yeelayna waxay ahayd inaan ku ekaano dhinaca galbeed Soomaali arag si ay Itoobiyaankuna gacan nooga siiyaan dagaalkii aan kula jirnay mahdigii Suudaan. Soomaali arag gorgortankaasaan ku bixinay dhulka buu leeyahay. dhulka aan Itoobiya ku wareejinay waxa uu dhan yahay 25,000 oo mayl oo laba jibaaran oo hore uga tirsanaa jirtay Somaliland Protectorate. 40 sano Soomaalidu waxba maysan ogeyn buu yahay. marka aan bixinay 40 sano kadib 1930kii ayay soo shaacabaxday inaan dhulkan ku wareejinay Itoobiyaanka. kadibna waxaa la aaday dagaalkii labaad ee adduunka. waayo Soomaalidu waxna ma qori jirin, waxna ma akhriyi jirin buu xilligaa leeyahay. marka 1930kii bay ogaadeen in ay soo shaacabaxday in dhulkaas aan Itoobiyaanka heshiis kula galnay. dagaalkii labaad ee adduunka la aaday 1954 waa marka sidii rasmi boqortooyada Ingiriisku heshiiska ula gashay Itoobiya ay ku xaqiijinayso wareejinta dhulka. heshiiska waagaas la gaaray 1897 baa la gaaray. laakiin waxay soo shaacabaxday 30kii. fulintiisuna waxay dhacday 54. Soomaali arag buu xildhibaanku leeyahay. haddaba wuxuu leeyahay dhibaatadu waxay tahay in qiyaastii 500,000 oo Soomaali ah sanad kasta ay u socdaalaan iyagoo daaqsin raadinaya xariiqaha u dhaxeeya meesha dhulkan ku wareejinay iyo dhulkaas
bay u kala gooshaan u kala gudbaan ilaa 500 oo kun buu ku tilmaamay dadka socodka sameynaya xuduudahaas iyo waxa aan samaynay waxay noo na dhaxalsiinaysaa buu yidhi cadaawad iyo nacayb nagala dhexeeya soomaalida oo intaasoo milyan ah mogta bayna dhaxalsiinaysaa sidaa wax u maaraynay soomaad arag dadkaasoo degan koonfurta iyo bariga soomaalida buu leeyahay hadda waxaa halkaas nooga shaqeeya 200 oo ilaalo ah oo booliis gobolka soomaalida oo lagu wareejiyey 200 oo ilaalo ah baa joogta Soomaaliya oo booliis Soomaali ah way 200 haddaba dawladda waxaan leeyahay waa in la gaarsiiyo ilaa 700 baan ka rajaynayaa inay kordhiso dadka booliiska ilaalada ah xuduudda Soomaaliya gobolka reserve area annaga naga dhaxeeya waxaa jira uu leeyahay dhibaatooyin joogto ah tan intaan heshiiska la saxeexay Ethiopia heshiiskaas aan sugaynay in Ethiopia ay sidii aan kula heshiinay ay u fulin doonto waxaan ka helay fariin uu soo diray Master Xasan madaxweynaha Xasan waxa weeye madaxweynaha xisbiga National United Front la yiraahdo waa xisbi ma aqaan madaxweynaha xisbigaas xisbiga NUF la yiraahdo madaxweynahiisa oo Xasan la yiraahdo baa fariin ii soo diray buu leeyahay ka hadlaysa xaaladda Etoobiyaanku waxay leeyihiin maamul sare oo ay ka muuqdaan dad wax ka soo bartay wuxuu leeyahay haddaba Ethiopia waxay leeyihiin waa dad wax ku soo bartay Oxford iyo bahalkii jaamacadaha ugu waaweyn adduunka bay wax ku soo barteen balse markaa hoos u daadegto gaar ahaan Harar iyo xuduudaha waxaad la kulmaysaa dad dhaqankooda u egyahay Carabta Yemen iyo Sacuudiga qarniga dhexe marka dhinaca Addis Ababa ka tagtid Harar iyo haddaad tagtid dadka jooga waa dad Carabta Yemen u eg iyo Sacuudiga qarniyadii dhexe waxaa jira nacayb iyo colaad ka dhex aloosan dadkaas Soomaalidu waa dad siyaasiyan miyir qabta Soomaalidu waa dad siyaasiyan miyir qaba buu leeyahay wiilashoodu waxay tagaan Brooklyn iyo Barrydock si ay u soo shaqeeyaan waa nimankii siimaanada ahaa Soomaali arag si ay markaasna waxay u noqdaan dhulkooda waliba waxay ayagoo war wada oo ka hadlaya waxyaabaha adduunka ay ku soo arkeen siyaasadda waxaas ay geeyaan waxaa jirtay buu leeyahay haddaba ninkii la oran jiray Anas Bevin oo ka shaqeynayay midowga Soomaaliya Evan wuxuu keenay qorshaha ah in Soomaalida oo dhan la mideeyo wuxuu doonay inuu mideeyo dhammaan Soomaalida oo dal Soomaaliyeed oo isku dhafan dhulkii hore Talyaanigu u hayay oo madax banaanida heli doona 1960 2 milyan oo Soomaali oo halkaas ku noolaa 750 ku noolaa dhinaca protectorate iyo dabcan Soomaalida Ethiopia haddii ay suurtagal noqoto Djibouti nasiib darro Mareykanka iyo Soviyetka kama aysan taageerin iyagoo qorshahaas markii iyagoo la isugu tagay wasiirku uu la tagay waxaa hor istaagay buu leeyahay oo ku diiday Mareykanka iyo Soviyetka in Soomaalida intaasoo qaybood la mideeyo wasiirku waa la tagay buu leeyahay shirkii United Nations uu la tagay laakiin waxaa hor istaagay qorshahaas uu la tagay waxaa hor istaagay Mareykanka iyo Russianka wuxuuna ku qasbanaaday inuu ka tanaasulo maaqaan waxa ka dhab ah maaqaan waxaa nasiib daraa inaan qorshahaas la sii wadin oo dowladdii ka dambeysay ama dowladihii dambe aysan qorshahaas aysan sii fulin saamaynta kalsooni aan ku lahayn geeska Afrika bay hoos u dhintay buu leeyahay Ethiopia waxay magacaabayaan caaqilo hogaamiyaal cusub oo Soomaali ah waxayna qaarkood ku qasbayaan inay qaataan dhalashada Ethiopianimada maadaama aysan helin wax difaac ah maadaama aan dayacanay dadkii waa aan wareejinay sidaas loola dhaqmay
waxay kaloo jiro warar sheegaya in ciidamada ingiriiska loo diyaariyay inay halkaas loo diro balse waxaan qabaa inaysan habboonayn in ciidamo loo diro dhul ay Itoobiya leedahay waxaa habboon in la kordhiyo tirada ilaalada iyo ciidanka xuduudka jooga meesha 200 meesha ingiriis aan diri lahayn ilaalada in laga dhigo 200 ilaa 700 la gaarsiiyo haddaba talooyinku soo jeediya Bevin waxa weeye Bevin maahane Jeremy Johnson xildhibaanka Jeremy la yiraahdo wuxuu leeyahay waxaan qabaa baahida shir caalami ah in la qabto oo sanadkan Addis Ababa shir waa in wasiirku xigeenku sanadkan Addis Ababa shir kula yeesha Itoobiyaanka waana inuu shir u qabto dhinacyada kale ah Faransiiska oo Djibouti haysta Talyaaniga oo Muqdisho haysta Ingiriiska oo Hargeysa haysta iyo Itoobiyaanka waxaana la casumi karaa Mareykanka oo dana shidaal kale halkaas waxaa lagama maarmaan ah in mustaqbalka Soomaali laga wada hadlo haddii aan sidaas samayn waxaan lumin doonaa taageerada Soomaalida inkastoo ay aad u daacad u yihiin oo ay rabaan inay ka mid ahaadaan Commonwealth marka ay helaan midnimada haddii midnimada Soomaaliya la helo waa dad daacada waxay rabaan inay haddaan ka shaqeyna arrintaas midnimadooda ah Commonwealth ka mid noqonayaan waana dad daacada intaas uu leeyahay Soomaali arag waxyaabaha ugu weynaayo taariikhda marka la xusayo Ingiriisku Soomaalida uu kula dagaalamay waxay ahayd inaysan qayb ka noqon Commonwealth ka markay dhinaca Talyaaniga Soomaaliya laakiin halkan waxa ka cad siyaasiyan inay rabeen in wadamadii lagu soo daro intii la soo waxay ay saladoodii Commonwealth ay ku soo ridaan ba halka ka cad wuxuu leeyahay haddaba dhibaato jirta oo na haysata doorka Masar ay ku leedahay gobolku waa mid indhaha aan ka qarsan karna ma aha buu leeyahay waxaan kaloo soo jeedin lahaa in dowladda Ingiriisku xiriir la samaysa Masar inkastoo wasiirka arrimaha dibadda uu maanta sheegay in ay Masar ka shaqeynayso dhibaato bay ka shaqeynayso hadalkii wasiirka uu ninkan uu ku halqabsanaya Masar dhibaato ka shaqeynaysa waxay Muqdisho iyo dhulka Talyaaniga hayay ka daadgurayeen arda ka badan ku daadguraya waxay keeneen 200 oo macallin sanadkii hore dhibaatada ay Masar samaysay waxa weeye inay 200 oo macallin keentay sanadkii hore Soomaaliya waxaana Soomaalida u ballan qaadeen deeqa waxbarasho jaamacadaha Qaahira halkaas waxaa ka muuqata in inkastoo aan Soomaaliland ku haynay aan haysanay buu leeyahay 70 sano hadda kaliya 19 arday oo Soomaali ah ayaa UK wax ka barata halka Masar ay qaabishay 60 maxaa halka ka muuqda Ingiriisku gobolkan uu haystay oo maxkamada wax uu u qabtay inaysan jirin ma meesha ka cad hadday ahaan lahayd aqoonta hadday ahaan lahayd dhinac walba in uu haystay wuxuu rabana ka qaadanaya bay ahayd sida uu xusayo 70 sano 19 arday baan keenay UK buu leeyahay 70 sano aan haysanay wadanka Masar 60 bay hadda baa dhigatay 60 arday bay qaatay 200 oo macallinna way soo garisay gudaha Soomaali arag marka dhibaato ku sheegay arrintaas wasiirku waa xildhibaanka kaliya oo booqday maxkamadii Somaliland asaga iyo xildhibaan kale oo ku horeeyay oo xisbiga conservative-ka labadaas nin baa booqday 70 sanana wax madax oo tagay labadayadaas tagay aniga ninkaas tagay Soomaali arag hadda waxaa halka ka muuqda dhaqankii dowladda ama Ingiriisku kula dhaqmayay Soomaalida dhulkan inuu bixiyay 54 uu bixiyay leeyahay inuusan bixin 1897 uu bixiyay markuu dagaalka uu aadahayay
mahdiga buu etoobiyaanka miniraq wuxuu ka codsaday haddaad dagaalka ila geshid dhulkaasaan ku siinaya soo maad arag dhulka marka xilligaas buu bixiyey mana soo shaacbixin lama ogon 1930 bay bannaanka usoo baxday markay bannaanka usoo baxdayna dagaalkii labaad ee adduunka la galay dagaalka adduunka labaad marka laga soo laabtayna ballantii buu fuliyey oo 1954 buu ku wareejiyey dhulka warbixintu taasay noo sheegaysa waxaa meesha ka cad ummad maaragtay aada u hooseysa oo xagga wacyiga xagga adduunka waxa ka jiray xagga aqoonta dhinac walba inay soomaalidu ahayd oo madaxooda ama etoobiyaan ha noqoto ama cid kale ha noqoto ay ku gorgortamaysay soomaad arag marka warbixintii labaad oo Jeremy intaasan ku soo qaadanaya idinka idin jirtaa sida waxa u arkaysaan soomaad arag laakiin waa taariikh aad muhiim u ah wax badanna daaha ka rogaysa moogta dabanadii noocaas ahaa oo shalay kuwa maanta galahaya moogta kuwa ku socda hadeertaan kuwa waxaan jirin sheegayo been Soomaali ah soomaad arag kuwa waxaan aysan u muuqan waxa adduunkan ka socda moogta ilaahay ummadda badbaadsado Soomaalida rag u kaca oo meesha ay taal ka qaada Allah soo saar intaas oran ma